diyaaradda boqorka ayaa saacadiiba waxay isticmaashaa $350,000 taasoo ka dhigaysa hogaamiyaha caalamka ugu qarashka badan dhanka safarka. waxaa caalamka indhihiisa soo jiitay markii uu boqorka booqday dalka Indonesia. markii uu diyaaradda ka soo degay ayaa waxa uu isticmaalay jaraanjar gaar ah oo dahab ka samaysan. kulan wacan ku soo dhawaaw kulan kaloo xiiso leh. ku dhowaad 7.5 bilyan oo qof oo caalamka ku nool. jaraa'idka Forbes ayaa hal qof ka aqoonsatay 100 milyan oo qof oo saameyn badan leh. dadkaasi aad ayaa loo ilaaliyaa. waxaa laga difaacayaa afduub, isku day khaarijin, samaysashada saraakiil ilaalineed kuwaasoo inta badan loo yaqaano ilaalada gaarka ah, kuwaasoo loo arko inay difaacaan sugaanna amniga boqortooyada, dadka caanka iyo siyaasiyiinta. laakiin maadaama ay haatan dadka dhaqaalahoodu sare u kacayo, ilaalada gaarka ah baahida loo qabo ayaa marba marka ka dambaysa kor u sii kacaysa. su'aasha imaanaysa ayaa waxay tahay, maxaa keenaya qofka in si aad loo ilaaliyo ama uu doonayo in ilaalo gaara uu helo? halkan waxaan idinkuugu soo gudbini doonaa sababta iyo dadka ugu sarsareeya dunida ee aadka loo ilaaliyo. Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Ruushka. Vladimir Putin waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka kale ee siyaasadda caalamka. amnigooda aadka loo sugo, waxaana sugo amnigiisa ciidan gaara oo loo yaqaano Federal Protective Service, ciidanka FPS. waxa kaloo ay ilaaliyaan ra'iisul wasaaraha Ruushka. ma jiro xog guud oo ku saabsan howlaheeda, mana jiraan warbixinno si guuda loo heli karo. waa mid sir ah oo keliya malo laga samayn karo waxa ay qabtaan. Putin laftiisa ayaa ah shakhsi muran badan dhaliyey oo warbaahinta udub dhexaad u ahaa tani markii uu xilka madaxweynenimo qabtay. waxaana la xusay in ninkani uu bilaabay inuu sii kordho shakhsiyaadka isaga ku xiran oo la mid ah madaxdii hore qaarkood. guutada gaarka ee ilaaliya madaxweynaha Ruushka ayaa waxaa loo yaqaanaa SPP. waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 9,000 oo ciidan, kuwaasoo shaqadoodu ay tahay ilaalinta madaxweynaha, qoyskiisa iyo madaxtooyada dalkaasi ee Kremlin. ilaaladaas waxaa ka mid ah 850 ciidan kuwaasoo maalin walba suga amniga madaxweynaha iyo madaxtooyada. kooxda mukhaabaraadka Ruushka ayaa si xeel dheer loo soo xulaa iyagoo dib u eegis lagu samaynayo halka ay ka soo jeedaan iyo taariikhdooda. diyaaradda khaaska ah ee lagu qaado madaxweynaha Ruushka ayaa qiimaheedu waxa uu yahay $550 milyan. diyaaraddan ayaa gaashaaman islamarkaana ay ku rakiban yihiin 70 telefoon oo casri ah oo uu madaxweynaha si toosa ula xiriiri karo wasiirada marka uu hawada ku jiro. sidoo kale diyaaraddan waxay awood u leedahay inay iska difaacdo weerar walba oo lagu soo qaado. diyaaradda madaxweynaha ayaa saacadiiba waxa ku kacaya qiimo gaaraya $218,877. mushaarka askariga ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sanadkii waxa uu gaarayaa $100,000. Joe Biden, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ah madaxda dunida ee amnigooda aadka loo suga. waxaana gacanta ku haya ciidan gaar ah oo loo yaqaano Secret Service. waxay meel walba ku weheliyaan madaxweynaha marka uu dalka gudihiisa joogo iyo marka dalka dibaddiisa uu tago. tababarkooda ayaa aad u sarreeya, waxayna ku jiraan kaalinta koowaad marka la fiiriyo tayada ciidamada ilaaliyo madaxda caalamka. waxay gacanta ku hayaan gaariga khaaska ee madaxweynaha Mareykanka ku safray ee loo yaqaano The Beast, oo ah gaari gaashaaman oo leh astaamo gaara sida in gaariga lagu keydiyo dhiigga madaxweynaha. gaarigan waxaa sidoo kale ku xidhan qalab casri ah oo telefoon ah oo uu madaxweynaha kula xiriiri karo ciddii uu doono meel walba uu joogo. gaariga The Beast ayaa sidoo kale waxa uu awood u leeyahay inuu ka badbaado sawaariikhda culus iyo hubka nukliyeerka haddii madaxweynaha Mareykanka la bartilmaameedsado. waxaa gaarigan ku xidhan hub culus oo uu isaga difaaci karo cid kastoo soo weerarto, isla markaasina waxa uu awood u leeyahay inuu socdo xitaa haddii ay taayirada neefta ka dhammaato. gaarigan ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay
oksijiin gaar ah taasoo madaxweynaha ka badbaadinaysa haddii kemikaal lagu soo weeraro. khubaradu waxay sheegayaan in gaarigan dhaqaalaha ku baxayo saacaddiiba ay tahay $2,200. safarka madaxweynaha waxaa kaloo u dheer diyaaradda sida ku qoran bogga aqalka cad ee dalka Maraykanka. diyaaradda khaaska ee madaxweynaha Maraykanka ee loo yaqaano Air Force One waa diyaarad u diyaarsan inay u safarto meel walba oo ka mida dunida wakhti walba. diyaaraddan oo nooceedu yahay Boeing 747-200B ayaa ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee sida gaarkaa loo naqshadeeyey oo loogu talagalay madaxweynaha talada haya ee Maraykanka, waxaana sumaddeedu tahay VC-25A. diyaaraddan oo laba xaba ah ayaa waxaa raaca madaxweynaha, halka midda kale ee la midabka ahna ay mar walba garab socoto. qaybaha bannaanka ee diyaaradda ayaa waxaa ku xardhan calaamadaha madaxweynaha, magaca dalka Maraykanka iyo calanka waddankaasi. diyaaraddan ayaa waxay awood u leedahay inay shidaal ku qaadato hawada sare, waxaana ku rakiban qalab elektaroonig ah oo loogu talagalay inuu ka difaaco wax walba oo diyaaradda soo ridi kara. gudaheeda ayaa waxa uu dhan yahay 4,000 oo square ah, waxayna leedahay qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin musqulo, qolalka shirka, iyo dhakhaatiir si joogto ah mar walba u saaran diyaaradda. shaqaalaha cunto karinta ee saaran gudaha diyaaradda waxay cunto u diyaarin karaan dad gaaraya 2,000 oo qof. Air Force One waxaa lagu naqshadeeyey oo ku rakiban qalab aan la jabsan karin oo loogu talagalay ammaanka madaxweynaha iyo xidhiirka qaybta hagista ee diyaaradda. daaqadaha diyaaradda waxay ka samaysan yihiin dhalo aan xabad karin. albaab walba oo diyaaradda looga baxana waxaa ku rakiban jaraanjaro u gaara, umana baahna in bannaanka loo keeno jaraanjaro si la mida diyaaradaha kale ee adduunka. si kastaba si ay u gutaan waajibaadkooda, ciidanka Secret Service ayaa waxay mushaar ahaan sannadkii u qaataan lacag dhan $138,895 oo. saddex. boqor Salmaan. boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis As-Sucaad ayaa ka mid ah dadka aadka amnigoodu loo sugo dunida. waa hogaamiyaha dalka dhaqaalihiisu aad u sarreeya oo shidaalka soo saaro. boqor Salmaan waxaa amnigiisa sugaa ciidanka boqortooyada ee shaqadoodu ay tahay sugidda boqortooyada dalkaasi. boqorka ayaa waxaa ilaaladiisu markiiba la socda ilaa 400 oo ciidan, iyadoo ciidanka gaarka ee ilaaliya ay tiradoodu gaarayso 25,000 oo ciidan. gaariga uu ku socdo boqorka ayaa ah Mercedes-Benz Maybach C-Class oo qiimihiisu yahay $50 milyan, kaasoo si gaara loo hagaajiyey. hub walba oo lagu soo weerarana gaariga waxa uu awood u leeyahay inaan waxba soo gaarin boqorka. waxa iyadana la sheegay in gaarigan uu awood u leeyahay inuu damiyo dhammaan telefoonnada magaalada ama deegaanka uu ku sugan yahay. kolonyada baabuurta boqorka ayaa ka kooban ilaa 150 gawaari, iyadoo baabuurka boqorka ay garab socdaan ilaa 7 gaari oo noocaas ah oo isku eg, iyadoo aan la kala saari karin ama aan la ogaan karin midka uu saaran yahay. waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah in kolonyada baabuurta boqorka marka uu dhulka ku safrayo qarashka ku baxayo ay tahay $150,000. ciidanka ilaalada boqortooyada ayaa waxaa lagu soo tababaraa Maraykanka iyo dalka Ingiriiska. diyaaradda boqorka uu ku socdo ayaa nooceedu yahay Airbus A380, taasoo si gaara loo hagaajiyey, waana mid gaashaaman dhammaanteed. diyaaraddan ayaa ah mid 3 dabaq ka kooban, iyadoo ay u dhammaystiran yihiin qalab walbo ay ka mid yihiin dhakhaatiir si joogta ula safro boqorka, islamarkaasina qalliin ku fulin karo hawada haddii loo baahdo. boqorka ayaa sidoo kale waxa uu diyaaradda ku dhex leeyahay xafiis iyo qolal weyn oo shirar ku samayn karo. gudaha diyaaradda ayaa waxaa lagu naqshadeeyey dahab. diyaaradda boqorka ayaa saacaddiiba waxay isticmaashaa $350,000, taasoo ka dhigaysa hogaamiyaha caalamka ugu qarashka badan dhanka safarka. diyaaradda boqorka ayaa saacaddiiba waxay isticmaashaa $350,000, taasoo ka dhigaysa hogaamiyaha caalamka ugu qarashka badan dhanka safarka. waxaa caalamka indhihiisa soo jiitay markii uu boqorka booqday dalka Indonesia. markii uu diyaaradda ka soo degay ayaa waxa uu isticmaalay jaraanjar gaar ah oo dahab ka samaysan. hubka ciidanka ayaa ah qoryaha bastooladda M16, GPMG
iyo hub kale oo ay ka mid yihiin powder suna. boqorka ayaa waxyaabaha gaarka ee laga ilaalinaya waxaa ka mid ah cadaawadda soo jireenka ah ee u dhexaysa dalkiisa iyo Iiraan. waxaa aad loo adkeeyey amnigiisa sannadkii 2020 markii dalkaasi uu weerar dhanka cirka ku qaaday dalka Yemen. mushaarkii ciidanka ilaalada boqortooyada ayaa marka uu qofka ku biiro waxa uu ka bilaabmaa $7,000 bil walba. afar Xi Jinping, madaxweynaha Shiinaha. Xi Jinping ayaa ka mid ah madaxda caalamka si aad amnigooda loo sugo. ilaaladiisa gaarka ayaa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12,000 oo ciidan kuwaasoo aad u tababaran. madaxweyne Jinping waxaa amnigiisa la sugaa marka uu dalka joogo iyo marka uu ku maqan yahay dalka dibaddiisa. gaariga uu ku socdo waa mid aan xog badan laga haynin, balse waxaa lagu sameeyey dalka Shiinaha, waana mid aan xabaddu aan karayn. sidoo kale gaarigiisa waxaa la sheegay inay ku xiran yihiin qalab isgaarsiin oo marka uu doono kula xiriiri karo madaxda dalkaasi. ciidanka amniga madaxweynaha gacanta ku haya waxaa loo yaqaanaa Central Security Bureau ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha. ciidankan ayaa ku kala qaybsan 7 guuto oo qabta shaqooyin kala duwan. inaad ka mid noqoto ciidankan ayaa arrin aan aad u fududayn, waxaana loo baahan yahay inaad ka soo gudubto tijaabooyin kala duwan ka hor inta aan lagu soo xulan. waxaa qofka laga fiirinayaa fikirkiisa ku aadan xisbiga shuuciga, heerkiisa tababarka ee ciidan, iyo in qof edeb iyo nidaam iyo ixtiraam iyo dulqaad dheeraada uu leeyahay. diyaaradda madaxweynaha Shiinaha ayaan wax badan laga ogeyn, iyadoo xogta ku gaadaaman ay qarsoon tahay, balse waxaa la sheegay in saacaddiiba diyaaraddiisa ay isticmaasho lacag gaarayso $180,000 iyadoo gaariga madaxweynaha saacaddiiba isticmaalo $2,000. xog badan lagama hayo mushaarka ciidanka ay qaataan, balse waxaa lagu qiyaasay marka ugu horraysa askariga uu ku biiro inuu helayo $2,000 bil walba.